السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا أصحابتا كسر وهذا لينكم عشركن وعشركن سكالات وكميدا عشرين امتحانها CSS كا عشركن waxaan ku qaadan doonaa CSS float ama habka float ka loogu isticmaalo CSS ka float ku waa qayb kamid ah layout ka ama hababka layout ka loo isticmaalo marka CSS float waxa weeye waa property is a positioning property waa property ku sameynaya positioning in waxaad aad pose u sameysid ama aad layout kombo ka qayb qaataa elementigaagan inaad position u sameysid inaad position geysid ma left baad digi ma right baad digi ma center baad digi halka digi lahayd buu ku cayimaya. It's used to push an element waxa loo isticmaalaa elementiga in loogu riixo to left dhanka bidix or right ama dhanka midig elementigaaga inaad ama dhanka bidix geysid ama dhanka midig geysid baa loo isticmaalaa. Allowing other element to wrap around it adigoo u ogolaanaya elementiyada kale inay hareeraha ka maraan inay hareeraha saas u soo wrap gareeyaan oo wrapping around ay noqdaan. It is generally guud ahaan ama sida guud used waxa loo isticmaalaa with images and layout waxa loo isticmaalaa sawirada iyo layout ka habka web page ka layout kiisu soo baxayo tusaale ahaan miyada oo kale inaad tiraahdo float left float right waan ku arki doonaa hadii lahayd markaan project sameeyaan waxaan oo dhan arki karaa faa'iidada uu leeyahay markaas ayaad fahmi kartaa project markaa ku sameysid faa'iidada waxaan uu leeyahay laakiin hadda as concept ahaan un baynu baran doonaa. To understand its purpose origin it is take a look to its printing display in the printing marka kan printing display maaha waa waxa loo yaqaan xaweye waa web layout printing display na waa marka buugta la koobiyeynayo kale laakiin kan sawirkan hadda soo qaaday waa web layout oo kale marka hadda halka waad aragtaa laymankan waxay taagan yihiin qoraal square kan ama rectangular kan wuxuu taagan yahay labadan waxay taagan yihiin laba sawir oo kale marka kan waxa lagu yiri bitanba float left bay marka dhanka bidix ku dhiga marka xagana waxa ka maraya qoraal xagana qoraal baa ka maraya wrap around it hareerihiisa waxa isku wrap gareynaya qoraal kana waxa la yiraahdaa float right oo waxa la dhigay dhanka bidix marka float ku intaas ay ku qabtaa plan by practical ahaan waa aragno hadii la haydmo halkan markaan tagno waxa sameynaa marka ugu horeysa fetch page html baad furanaysaa tusaale ahaan ani page kana ii furan kana waa css kii wayna isku xiran yihiin waa kan linki waa kan halkan isku xiran yihiin si la isku soo xiro hore baan soo dhigan halkan waxa yaala saddex paragraph aan si kordhiyay afar paragraph aan ku sii daro dhowr kale tusaale ahaan waxaan idhi waxaan ahay Soomaali dhalada ah oo ku nool wadankiisa hooyo okay internet koobiyeynayaa deetana waa save garanaysaa okay internet iska tuuro browser kan ku furo okay sidan oo kale uu soo baxay markii browser ku furay qoraalkeena waa sidan waxaan rabnaa inaan image soo dhigno tusaale ahaan desktop kiga tagaya marka ugu horeysa okay waxaan tagayaa marka memory-gayga ayaan tagayaa kabacdi waxaan tagayaa meel sawir ku jiraan halkan oo kale aan tagayaa okay waxaan rabaa inaan soo qaato sawirka baan soo qaadanayaa marka tagto soo koobiyeysanaysaa memory-gaaga halay file explorer-kaaga dadna waxaad dhigaysaa folder-ka ay kugu sameysan yihiin html page-kaaga folder ku sameysan yahay hadda ani web design-kan igu sameysan yahay folder-ka dhex tagayaa kabacdi halkaas ku save gareynaya halkaas aan paste ku dhahayaa magaciisu waa download tapekiisuna waa jpg waxaan ku noqonayaa html-kaygii halkaasaan tagayaa kabacdi waxaan leeyahay img image tag baan soo qaadanaya halkaasaan ku paste gareynayaa download.jpg
dabeetana control s baan leeyahay open in browse baan leeyahay sumaad wuu soo gala logadi way soo gashay aan ku noqdo halkan css kaygaan tegayaa dabeetana waxaan soo qaadanayaa img oo ahaa image tag marka ugu horeysa waxaan siinayaa width saan u yareeyo siinaya matalanba 90 pixel headkiisana waxaan ka dhigayaa 70 pixel oo kale control s baan leeyahay browserkan ku noqonayaa refresh baan leeyahay hadda soo ma aragtay meel wuxuu dhigay bartanku geesku dhigay waa sidii macnaha originalka ahayd hadda haddaan float raaciyo daawo float markaan dhaho matalan waxaan dhahayaa float left oo kale baan dhahayaa control s wuxuu sameeyay qoraalkii hareeraha ka mariyay waa sidii sawirkeennii hore aynu arkanay oo kale soo jeedid qoraalku hareeraha ka mariyay haddii aan dhaho float right oo kale wuxuu sameeyaa xagee buu dhigay halkan uu dhigay marka dhankan wuxuu dhigay right ka ayuu dhigay marka float kana taas aad u isticmaali kartaa casharkiina caawa intaas ku eegaya aad buu mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.